abwaan dhoodaan iyo suugaantiisa dhaxalgalka ah. abwaan cabdulaahi maxamed axmed dhoodaan allaha u naxariistee wuxuu ahaa gabayaa sare oo aad ugu xeel dheeraa dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed, taariikhda iyo sooyaalka ummadeena iyo geeska Afrikaba. abwaan dhoodaan wuxuu aad ugu xeel dheeraa maanso mahmaaheedka ama mahmaahda loo rogayo maansada. axmed faarax idaaja oo ka faaloonaya dhoodaan ayaa yiri maanso mahmaaheedka abwaan dhoodaan waxay ahayd dhoolatus uu ku bandhigaya aqoonta dheer ee uu dhaqanka dadkiisa u leeyahay. tusaale ahaan tuduc ka mid ah maansooyinkiisa ayaa wuxuu ku soo qaadanayaa maamaahdii ahayd cadowgaada dhuux sagaaraa loogu soo dhaashadaa. tuducdu waxay odhanaysaa raggiisa aabbayaasheen dhalaa dhaafay hadal weyne, mahmaayada ay inoo dhigeen midaan ka soo dheegay. intaas sacbada u dhigan lahayd cadow ku dhuudaaya si uu dhoomo inaad buuxsatay oo dharagtay kuu moodo. dhafoor xun iyo cadowgaagoo yuu dhuubnikaa garane waxaaba loogu soo dhaashadaa dhuux sagaara ahe. markaadse hadalka geestuu u dhici sii dhadhamisaanna dhudhunkeeda taa lama lahayne dheef ka raadsada e macnuhu waa dhiggaa lama baryo e ceeb ka dhoorsada e. sidoo kale gabay kale uu la magac baxay tusaale ayaa abwaan dhoodaan oo Soomaalida ku waaninayay ayuu wuxuu ku muujinayaa sida farshaxanimada miiran ee uu mahmaahda maanso ugu rogi karo. wuxuu gabaygan ka soo qaatay 4 mahmaahood ee kala ah dhagax taabasho iyo tuujini waa isaga too, hal nin la toosani nin la tuur leh, waana abuur baa ka horeysay iyo saddexleedii ahayd, saddex baa rag ugu liita matabcade matoshe iyo matashiishe. mahmaayadan ayuu gabigoodba inta isku xijiyey ayuu ku soo koobay 7 meeris oo qayb ka ah gabigiisa uu tusaale u bixiyey. tuducdaasi waxay leedahay dhagax taabasho iyo tuujin iyo inaad tantoomayso, saddexdaa midkaad ula tagtaa waa isugu taage. nin wixii la toosani mid buu tuur la leeyahay, waanada abuurkaa tirtira oo ka tabaroone. qofkaan tirin samaalkiisa waa inuu tasoobaaye, maradiisa kaantolan dhaqsay uga tifmaysaaye. ka tashiilan waayana ma dhalan suu u taajiro. gunaanadka gabayada abwaan dhoodaan waa murtiyo nagu waaninaysa darxumada markaa ina haysa inaan qarsano oo aan cadowgeena foolkeena ka akhrisan oo aan u muujino dharag idladlaan aan run ahayn. sidoo kalena inaan caqabadahana haysta aan si qalbi furan u wajahno, xoog iyo xeelaba aan horumarkayga ka shaqayno, lana jaan qaadno horumarka casriga ah ee dunida maanta anagoo dhaqankayaga fiicanna aan luminaynin. waa walaalkiin Baazi Busuri iyo barnaamijkii horumari ummadaada oo aad ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ah Universal Somali TV. barakallahu fiikum.